السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحad iyo wanaag baan idin rajaynayaa wallahi sharafta badan meel kasto adduunka aad ka joogtaan. Muuqaalka waxaynu ku soo qaadanaynaa kiniinka timaha u wanaagsan noociisa laga digo ee dhibaatada baahsan dadka gaarsiiya iyo nooca markaa recommendable-ka ee lagula taliyo qofka timuhu ay ka daadanayaan inuu qaato isticmaalo. kiniinkan waxaa lagu magacaabaa biotin. kiniinkani waa kiniin ka qayb qaata inuu timaha soo saaro koritaanka timaha, sidoo kale waxa uu qofka ka qabtaa daadashada timaha iyo timaha daciifay intaba uu ka ilaaliyaa. haddaba kiniinkan biotin ee timaha soo saara laba nooc ayuu leeyahay ama laba qaab uu ku yimaadaa. labada qaab ee uu ku yimaado qaab dhibaato ayuu qofka u geysan karaa oo waxa uu leeyahay huge side effect, saameyn caafimaad oo aad u dhib badan buu leeyahay qofka hadduu muddo dheer isticmaalo iyo xataa muddo kooban haddii uu isticmaalo markiiba wuxuu iska dareemayaa inuu caafimaadkiisa dhibaateynayo. kaasi waa ka chemical-ka ama waa kiniinka caadiga loo sameeyo ee qaabka chemical-ka ku yimaada ee farmasiga iyo goobaha caafimaadku ay caadi u bixinayaan. qaabna waxaa la yidhaahdaa supplement oo herbal baa laga diyaariyey ama waa dhir oo herbal baa laga diyaariyey se laakiin wuu diyaarsan yahay oo dowskiisa iyo xaddigiisu wuu cayiman yahay. ka chemical-ka ee farmasiyada iyo goobaha caafimaadka laga helaa waxa uu leeyahay side effect aad u halis badan oo ay ka mid yihiin kalyo xanuun, oo ay ka mid yihiin qofku inuu haraadku aad ugu bato. dhibaatada ugu weyna waxa uu gaadhsiiyaa kalyaha. laakiin kan laga diyaariyo noociisa herbalka ee supplementigaahi aad buu faa'iido badan yahay, khatar caafimaadna ma laha, dhibaatooyin jireed oo qofka uu geysanayaana ma jirto. waxa uu qofka ku keeni karaa uun in mararka qaar haddii uu isku badiyo waxoogaa calooshu inay majiranto. waa ka herbalka laga sameeyey calool majiir uu leeyahay. weliba dadka calool majiirka isku arkaana ma badna, dad yar baa isku arkay ilaa hadda inta la qorayo. se laakiin faa'iidadiisa aad u badan waa noociisa herbalka laga sameeyey supplementiga ee la diyaariyey. timihii daadashadiina wuu kaa qabanayaa, timihii daadanayay wuu kaa qabanayaa oo timihii daadashadii way istaagaysaa. timihiina waxa ay bilaabayaan markaad isticmaasho koritaankoodii iyo caafimaad qabkoodii iyo quruxdii timuhu ay lahaayeen. dadka inta badan timuhu aanay ka wada daadan ee daadashadu ay ku bilaabmayso xilli hore inay isticmaalaan ayaa runtii markaas ay natiijo fiican ka gaari karaan. wassalaamu calaykum.